annaga waxaan leenahay ciidamada wadamada safka hore hanaga joogaan wax allaale wixii walaalnimo iyo wada dhaqana iyo nabadgelyo iyo isu socda iyo kala ganacsiga tiyaaran walana qof Soomaaliyeed diidi karo laakiin ciidankooda inaan kaalmo noo noqonin badelankeedu waxaan anaga mathalayna hadii barlamaanka aan inkastoo eedaan la dooro waa anaga intaas qorqornay oo isxogsanay oo sameysnay haddana waa noo ogolaateen hadda waa noo joogtaan waa ku mahadsantiin anagu idin mathalayna shacabka rabitaankiisa ayaanan rabin ciidamada wadamada safka hore sida hadayba 75 anigu ma tirin laakiin qiyaasta ayaan qaatay wax ka badan ba 75 wax ka badan baa diiday mar haddii ayagu diidan yihiin annaga marka ma dhihi karno hal keeno taariikhuma anagana noo reebay annaga wadamada safka hore aragtidaas ka qabnaa caasimada soo aragtay dhamaantii hore ka hadlay anaga caasimada waxaan leenahay haddii ayaduna daawiyo dalka daawo noqon caasimadu dalka goboladu waa gelin kartaa laakiin ma isliyaan goboladu inay wax gelin karaan marka in caasimada inta la tago ahdigana waa ku dhigan tahay inta la tago caasimadii laga shaqeeyo anaga markii hore waxaan soo jeedinay reeya February markaan tagnay 3 bilood in la siiyo dadka xamar qoryaha ku haysto oo shalayna shirka ka qayb galay ka dhamaano noqday wasiir noqday iyo intii kale oo la hadlo sida ganacsatada kulligood in inta la hadlo walaalayaal caasimada laga dhigo caasimada loo sameeyay walba intuu maray karkaba dawladdu ka shaqeyn karto dawladda badan ku dumaaleeyay dawladda laga dhigo in la yiraahdo 3 bilood ayaa la soo jeediyay sida runtii waladi ana la qofna deedeeyay kuwa diidayna ku jira ay farto waladi si kasta ma haddana markii dambe waa la hadlay waa tiin ciidamadii laga hadlay aniga waxaan soo jeediyay ka shakhsiyan wadamada deriska ayayna u voodin yaana ka voodin haddaan u voodno shacabkii baan la dagaalamayo haddaan ka voodnana ayagana lagu goynaa marka siyaasad kale aan dheelno oo ayaguna aan ku qancino waxay naga rabaan ama si alaasi aan ula shaqaysan karno way suuroobays wata ogeydeen waxyaalo badan oo ku jira hadda hoos uma degaayo oo in la isku dilay karti waa laga soo gudbay 3 bilood way dhamaatay 3 bilood kadib ayaa hadana la keenay bilkii markii la keenay anagu waxaan niri masaasa ha okay bish 17 ayaa shir la qabanaa xidhawaan kastoo maqan kuwa ku maqan Yurub kuwa ku maqan America kuwa ku maqan Soomaaliya danta laga hadlayo wixii loo doortay waa saas darteed 17 laga dhigo waa laga diiday 6 beri dartooda u kala maqanay maanta sida xaqiiqda hadda sheego haddii 6 beri la sugi lahaa anigu inta barlamaanku go'aan gaaro maanta ma dhihi kara lahayn haddii inta hor yimaado barlamaankii go'aankii gaaray anigu gudoomiyihii barlamaanka go'aankii asigaan diidanahay anigu inta la soo hor istaago idinku la soo dhaweeyay haddii ay soo dhaweeysan xaq ma noqonayo 6 beri haddii nagala diiday anagu waxaan 6 beri dadkaan sugno xaqay u leeyahay boqol wax la jiro ay dhamaan baa maqan arinta laga hadlay arin sahal ma ahayn waa nagala diiday koormaan xaq ahayn shir aan xaq ahayn ayaa la go'aamiyay dhawaatada aan ku kala guurnay toon weligeed ara dawladda barnaamij way isqabsadaan waan ogtihiin laakiin anagu waxaan ku ceebownay anagoo nasiib darra ama nasiib wanaag si kasta ha noqoto dawladda dalka lagu dhisay anagoo dalka dawladda dalka lagu dhisay anagoo dalka waxaa nasiib darra markii la dhisay in la soo diiwaanteen loo guuro waa nasiib darra kale in inta loo guuro hadii isku dagaalmo haddaan maanta isku meel joogi lahayn oo si kasta haddaan u murano waa codeen lahayn meel u badan meeshaasaan la raaci lahaa dadkoo dhan cadaalad darro ma samayn lahayn marka waxaan ku kala tagnay waxa waaye annaga ceebtanadeena waxay fadeexo ku noqotay annagoo dalkii joogin intay u guurnay intay siri kala guurnay dhibaatada intaasa keenay haddana waxay ilahay ka baryahay inaan inta sunni maamo xaqiiqda ka hadalno wax runta ana aadno oo xaqiiqadana aan sheegno Soomaalina maanta dhibaatada ay ku jirto kan Yurub joogo waa dhiban yahay kan gudaha joogo waa dhiban yahay kan Ameerika joogo waa dhiban yahay nin walba dalkiisa u dala marka dhibaatooyinka lagu jiro waa dareemi karnaa meel kastoo aan tagno waa la canaanta
laakiin annaga nasiib daro meel aan u sikano ma hayno haddaana tilmaamaysaan kama daarayno waa ku soo noqon kartiin meesha aan u sikan karno waa noo sheegaysaan waan u sikanayna Soomaaliya 14 sano dalkii waa jiray dadkii waa jiray maxaa ka maqan sharci ka maqan ana waxaan rabaa in sharciga asiga lagu dhaqmo haddii sharciga la helo dadkiina uu jiro dowladnimadu waa danta laakiin haddii dadkii joogo dalkiina joogo sharci aan jirin waxaa hadda aan kala maqanahay ummadda marka anagu waxaan rabnaa axdigii la dhigay waxyaalo la dhaliilsan yahay waana ku jiri karaa bani aadam baa sameeyey ilaahay wax sameeyo baa dhan wax bani aadam sameeyo ma dhamo marka waxaan rabnaa wixii ayaga in inta la fariisto laysla ogaado meel laysla saaro aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed culimada waxgarad gabdha nooc kasta ay ka hadlaan soo jeediyaan wixii la bedel kara la iska bedelo laakiin Soomaaliya walaalayaal anigu waxaan aaminsanahay ma anfacayso fikir shakhsiyaad ama shakhsi inuu inta wax iska fikiro haddana ahdigii loogu bedelo lagu dhaqmo ma sugo imaan karno waxaan aaminsanahay annaga waxaan rabnaa dawlad idinku inta soo noqotaan dalka aad ka shaqaysaan waxay soognahay dalka ayadoo dawlad ka jirta rag badan ka soo tagay waxayna ka soo tagay dictatorship haddii dictatorship kale hadda uu yimaado ma soo noqonaysaan haddana idinku soo noqon dalkii adhisa ma idinka dictatorship soo noqon ma idinkoo arkay xorriyaddan iyo sharaftan iyo lacagtan iyo wax walba arkay ma idinku dictatorship soo noqonaysaa annaga waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda in la helo wax ka bedelan oo ahmad waxaan rabnaa dawlad u adeegaysa dadka iyo dalka iyo diinta dimuqraadiyadda ku adeegaysa nin walbana xaqiisu helayo haddii intaa la helo waxaan qabaa annagoo dhan markayda waxaan nahay dad oo diyaar u ah dalkooda inay dhisaan markii u dambeysaan rabay inaan ka hadlo dadka qaabanqaabi aad u mahadsan laakiin saaxiibkeena naga maqlaysay inay soo qaadaan muddo badan waa ka hadlay runtii intii asiga maqnaa anigu rag badan oo alla hadlaa jiro intaasna waxaan weligeed hadalada badan ay dhaafay runtii maqnaashiya asiga u maqnaa marka mar hadduu yimid asigana kulli hadaan siin doono waan ku raadinaanaysaan waqtigana waan siinayna marka walaalayaal arrintu waa naga dhaxaysa annaga waxaan rabnaa in ahdiga lagu dhaqmo saaxiibada ayaga naftoodu waxay leeyihiin ahdiga lagu dhaqmaan rabnaa weligay anaga ma maqal afkooda ahdiga lama rabo laakiin kaayaga run wado oo ahdiga marka wado idinka la rabo inaad ka jawaabto haddii annaga ahdiga inta sheeganayno oo wax kala wadanan inaan noo sheegtaa in kale inka raba dadka aan ku dheelaynin mustaqbalkooda iyo dalkooda idinka wado haddii aynan saa ahayn in waxa la rabaa inta la fiiriyo aniga 100 jeer aan idaacadaha ka sheegay Soomaaliya Muqdisho waxaan yiri sharciga qaan ha qaadaan ahdigan haddii annaga ahdigina dhowrna aragno saaxiibada